السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan naga daawanaysaan ajmal service asxaabta igu xiran dhammaantiin soo dhawaada. taariikhda waa 22 bisha 12 2022 hadduu alla qadaro. muuqaalkan waxaad ku arki doontaan dhul ku yaalo jasiiro aan idiin sharxi doono meesha uu yaalo kiiloomitirkiisa qiimihiisa dhammaan wax walba oo ku saabsan xogta dhulkan. qof walba oo hadda muuqaaladeena ugu horeysa waxaan ka codsanaynaa inuu subscribe noo saaro kambalelka furto muuqaalkana sii share gareeyo inta hore noola joogta dhammaantiin like saara sii share gareeyo dhanka page-ka haddaa naga daawanaysaan sidoo kale followna dhahaa like-na noo saara. waa ku mahadsantihiin. waxaa joogaa jasiira, waxaa kasii joogaa abaydhaxan. eriyadan aan joogo waa abaydhaxan. jasiiro magaceedana wuu ballaaran yahay, deegaankeeduna qeybna waa gobolka banaadir qaybna waa shabeellada hoose. marka anaga waxaa joognaa abaydhaxan kiiloomitir 0 marka laga soo kiiloomitiriyo oo halkaa laga soo bilaabo kiiloomitirka waxay u jirtaa 15 kiiloomitir. markii kiiloomitir 0 laga soo bilaabo 15 kiiloomitir buu u jiraa dhulkan magaalada bartamaheeda. balse hadda meeshaan aan joogno ilaa magaalada muqdisho way isku xiran tahay. kiiloomitir 0 ilaa meeshaan meel duur ah ee baadiyaha howda kuma jiro, waa la wada degan yahay. korontadii biyihii iyo wax walba way leeyihiin. hadda meeshaan biyuhu way leedahay, korontadana way u muuqataa, wax oo weyn uma jirto. laamiga oo ceelhuur intuu jira idiin sheegi doonaa. dhulkan faa'iidooyinkiisa dhan walbay ka imaan karaan. haddii laamigan ceelhuur hadda in la dhiso baa la rajeynayaa, haddii dhismihiisa inta la bilaabo la dhiso oo laamigan dhismihiisa uu dhammaystirmo dhulkan dhul aada qaali u noqonaya. sidoo kale haddii deegaanka ama meeshaan hadda jasiira state deegaankeeda uu fido oo la dhiso amaba dhulka ka dambeeya hormuud ay leedahay dhulkan la dhiso, dhulkan wuxuu noqonayaa dhul dhayman ah, meel dhexe ee wuxuu ku jiraa jiha kasta mustaqbalka leh, jiha kastana mustaqbalka sugaya. dhulkan abaydhaxan uu ku yaala saa idiin sheegay, waana meesha hadda muuqaalka markaan bilaabayna aan taagnayn. hadda waan kasoo dhaqaaqay, gaarigaa ku socdaa. laamiga ceelhuur intuu u jiro kiiloomitir ahaan baan rabaa inaan idiin sheego oo marka aa qiyaas rasmiga ka qaadataan. markaa dhulka taagan tahay xeebtan waad arkaysaa dhulku dalcadu saaran yahay. sidoo kale waxaa arkaysaa dhinacyada kale jihooyinkaaga kaleeto deegaanada intuu kuu jiro ama masaajid oo kaleeto ama deegaanka ugu soo dhow meeshuu kuu jiro waa arki kartaa. waa dhul dalcad ah, waa 20 boos, bimacnaa waa 2 baloog. labadan baloog way isku xiran yihiin, waa iib. labada baloog lama kala iibinayo, hal boos looma iibinayo, balse dad haddii la arko ayaga waa laysku aruurin karaa oo qof uu 2 rabo, qof 3 rabo, qof 5 rabo, qof 10 rabo, sidaas dadka waa laysugu geyn karaa. almuhimna waxaa ah ma ahan inaa 1 boos qaadato, inaa 2 boos qaadato, inaa 10 boos qaadatid, laakiin waxaa muhiim ah lacagta kaashkaahi aad heli kartid inaad dhul gashatid, taasaa muhiim ah. maantay 10 boos ma awoodo, den boos waxba ma gadan kari, waa iska dhaafaa ha dhihin. wixii aad awoodid wax ku gado, waxay rabaan ha ahaadaan. inta aad haysato bisinka u qabo dhul gasho. dhulka waa hanti aan marnaba aad uga cabsanaynin inuu ku yimaado hoos u dhac marka hore haddaan lagaa siinin qiimo aysan u qalmin. dhulal waxaa jiraan dadka marka hore lagu qaldo oo afka ay ku qaaliyeeyaan, dadku hawada mariyaan, denna qofka maanta oo kaleeto hadduu gato asagoo dhulka haysto 2 sano kadib ama sanad kadib laga yaabo qiimihii maalintii looga gaday qiimo ka hooseeya inuu dhulka istaago. maxaa sababay? marka horeeto qiimaha meesha maynan maraynin. marka taana way dhacdaa oo mararka qaarna dad baa dadka macnaha sidaa ku gaaday ku qayaano, mararka qaarna ficliyan ay u dhacdaa dhulka inta afka lagu qaaliyeeyo buu qofku gadanayaa sida ficliyan ah, qiimahaasaa laga siinayaa oo qiimo qofkan usoo sheegay ama qofkan barnaamijkan uu ka gatay asaga uu siyaadsanaya maahane qiimo guud ahaan meesha la qaaliyeeyo oo dadku afka ay ku qaaliyeeyeen. dan waxaa laga yaabaa in markaa uu qofkii ku baraarugo dhulkan qiimaha shalay uu ku gatay qiimo ka hooseeya inuu maalmo kadib imaado ama ayaan kadib. taana laftirkeeda khasaare lama dhihi karo, waayo maalintaa qofkaan dhulka lacagta uu geliya hadduu gacanta ku hayn lahaa sifir hal xaba kama haayeen, way ku wada bixi lahayd. oo waxaa laga yaabaa dhulkan maantay in lagaa siiyo $5,000.
inuusan u qalminin oo macnaha afka lagu qaaliyeeyay laakiin sanad kadib lagu yiraahdo dhulku waa 4,000 waa xanaaqi waxa isleedahay ninoo dhulka shalaawa 5,000 ka bixiyo maanta waa 4,000 ku tagay laakiin sida kale positive-ka oo ma fakaraysid oo ma oranaysid maalintii 5,000 hadaan dhul gelin lahayn oo aan gacanta ku hayn lahaa tolo intee mari lahayd taa hadaa ku fakartid waxaa noqonaysaa qof xisaabtama ma kala jeedo dadka dhulka in lagu qaaliyeeyo ama lagu kiciyo inay wax dan ku jirto wax dan ah ku jirto wax fiican ma ahan waa qalad dhul af in lagu kiciyana muhiim ah dhul walba meeshuu ku yaalo lacag u qalanta in laga bixiyo aniga qaba waxa imaan laamiga Ceelhuur laamigan Ceelhuur dhulkan wuxuu u jiraa 1 kiiloomitir ee kow ah tiira soo marna waa soo leexleexanay laakiin 1 kiiloomitir u jiraa 1 kiiloomitir oo rasmi u jiraa waa jinkada hadda inta idinkaga muuqato dhulka meeshaan idinkaga tusinay zoom baan soo iri waa jinkada arkaysaan jinkadan ilaa laamiga meeshaan aad joogno baa 1 kiiloomitir ah goolada ayaa soo marna wada toosamaana soo marin waa laga yaabaa hadii wada toos la bixiyo inuu dhulku inta kiiloomitir ahaan ka yaraado laakiin aniga inta saxda ah ii soo sheegaan idin sheegaya waayo hadhow haday wax ziyaadaan waxa noqonaya qof been sheegay mana rabo almuhim hadda meeshaan aad arkaysaan amaba anteenadan baalahan hadda idin muuqdo waa baalihii looga leexanayay abaydhaxan halkaana looga leexdaa laamigan waa laamiga Ceelhuur way yaqaanaan Soomaaliya oo dhan way yaqaanaan ama 30 sano ka maqnaaw ama 50 sano ka maqnaaw laamigan xili maxamed siyaad baraal dhisaala una xariisto waa aragtay laamiga haraagiisa wuu muuqdaa waa laami halbowle ah ee muhiim ah 100% la dhisi doono taasha ka qabin maanta marka dhulkan qofkii jaaris inta u hela qaata wuxuu heli karaa ama uu micnaha ra'sumaal ahaan u haysan karaa dhul dayman ah waayo dhulkan jiha kasta mustaqbal uu ka leeyahay markuu laamigan ku jira 1 kiiloomitir badan waxay ku jirtaa 500 oo tilaabo meeshan hadda aad arkaysaan oo gaariga uu ka leexanayay oo aan kaamirada idinkugu qabtay iyo xeebta waa la isugu lugayaa wax weyn ma ahan wax yar ee ku jirta xeebta waa adiga dhowr baloog oo fara ku tiris ah marka xeebtan intaas u jirtid laamiga Ceelhuurna inta u jirtid dhulka dalcadaana aad haysatid waxaad qiyaasan kartaa dhulkan faa'iidada iyo mustaqbalka uu leeyahay horay dhulka ka shisheeyo oo ilaa meelan dhaweyn dhanaana tag waa dhul hormuud ay leedahay dad shakhsiyadan ay leeyihiin dhulkan ka sokeeyo ilaa xamarna waa dhul qaaliya meel dhaxa ku jirta qiimaha dhulkaana aad uu maanta normal u yahay 20ka boos cabirkoodu waa fintiyaal dhulka jasiiro inta badan waa finti waa 20 waaye marka maadaama finti yahay 20 boosna uu yahay waxa ku qaadan kartaan qofkii 1 iyo 2 iyo 3 raba dadka in loo aruuriyo ee sida jamacada lagu siiyo amaba qofkii isku wada qaadan kara halka baloog ama dadka intii ay is aruursadaan wada qaadan karana waa fikrad kale oo ka fiican dhulkan hadda aan ka imaanay oo aan warbixintiisa iyo muuqaalkiisa oo dhan aan idin la wadaagay wuxuu ku yaala abaydhaxan laamiga Ceelhuur wuxuu u jiraa 1 kiiloomitir xeebtan wuxuu u jiraa adiga 500 oo tilaabo camal markii laamiga laga sii tilaabeeyo waxay noqonaysaa 1 kiiloomitir iyo bar camal waa iska qiyaasa inta xeebta ma hubo laakiin xeebta luga lagu tagi karaa mar laamigan Ceelhuur hada joogto xeebta way ku muuqataa marka dhulkan waa 20 boos ama waa 2 baloog boos walba kamid ah cabirkiisu uu yahay finti bar finti 20 lagu dhufto 20 qiimaha lagu rabo halkii boos oo kamid ah waa 4,500 oo dollar halkii boos waxa lagu rabaa 4,500 oo dollar deegaankii ama guryihii iyo xaafadihiina waa kan horan Ceelhuur waxa usoo dhaafnay abaydhaxan haddana waxaan maraynaa inaan ku dhownahay laamiga kaleeto waa maasantiin halkaan ka leexanayo